dhibaatooyinka dunida ka jira sida wasakhowga hawada iyo isbeddelka cimilada ayaa ah kuwa inta badan lagu gorfayo oo lagaga hadlo warbaahinta qaybaheeda laakiin xaqiiqdii waxaa jira mashaakilaad kale oo badan oo ay dunidu waajahayso taasoo uu ku yar yahay si qaabka ay saxaafaddu uga hadasho barnaamijkeena xogta dahsoonna waxaynu ku soo bandhigaynaa qaar ka mid ah dhibaatooyinka aan xalintooda iyo wax ka qabashadooda ahmiyadda dheeraadka aan la siin kuwaasoo ah kuwa dhab ahaan ka taagan dunida waxaana ugu horreysa tarandhaafka tirada dadka dunida ama korarka ku imanaya maalinba taxigta tirada dadka dunida dhibaatadan oo ah mid aanay dunidooda qabin laakiin saameyn xoogle ku yeelatay waddamo iyo goobo ka tirsan tusaale ahaan marka aynu qaaradda afrika ku ogaano in tirada dadkeedu uu si xawlile u korayo ayaa dhanka kale isticmaalka tiknolojiyadda cusub ee caalamka ka tasqaaday waxa ay ilaahay awooddiisa kabacdi sabab u noqotay inay meelo ka midihii ku yaraato tirada dadku maalinba taxigta waxaana meelaha ka mid ah waddamada jarmalka jabaan litwaniya iyo kuuriyada koonfureed kuwaasoo la kulmay hoosu dhac ku socda tirada dadkooda maadaama ay tirada dadka dhalanaya sii yaraanayso marka la dhinac dhigo boqolkiiba tirada dadka ee dhimanaya taasoo keentay in jiilba jiilka ka dambeeya uu ka sii yaraanayo iyadoo dadka xaaladda ka baxayana aan loo haynin beddelkii loo baahnaa ee ahaa dadkii dhalanayey taasoo siyaabo kala duwanna u saamaysay sida cududii shaqaale ee loo baahnaa oo yaraata shaqooyin badanna ay waayaan dad xirfadlayaala oo waddanka u dhashay waxaa kaloo dhibaatooyinka ka mid a isticmaalka dawooyinka dhalmada hakiya ama kala dheereeya haweenka oo galay oo qayb ka noqday dunida shaqaalaha dhallinyarada oo ku guursata weynaan iyo agabka elektroniga ah oo gaabis ka dhigay halabuurkii iyo xusuustii maskaxdeenna haddaba inkastoo ay shakala-aan tahay in horumarkan ay sameeyeen basharka aadamuhu yahay mid ku yimi maskaxda iyo garaadka uu ilaahay siiyey aadamaha oo ah mid ay kaga duwan yihiin noolaha kale ee ilaahay dunida korkeeda ku abuuray ayaa haddana qaarkeen waxaynu u qaadan karnaa inaynu xilligan ka waxgaradsannahay oo ka maskax badannahay xilligii hore laakiinse baaritaanno caalamiga oo arrintaa laga sameeyey waxay soo saareen in maskaxdii iyo garashadii dadkii hore ay ahayd ta soo bilowday horumarka baanta la gaadhay iyagoo dadkii xilligii hore noolaa ay la kulmeen xaalad nololeed oo adag taasoo ay halabuurkooda iyo hindisahooda kaga soo tallaabeen oo ku xalliyeen caqabadii horyaallay laakiin xilligan casrigaa ee aynu joogno innagu waxaynu waajahaynaa oo ina horyaallaa caqabado aan badnayn laakiin ah kuwo ay ku xidhan tahay badbaadadeenna guud oo haddii xal loo waayo sabab inoogu noqon karaa inaynu casriga dhagaxa dib ugu laabanno taasina waa midda aynu ka hadlayno innagoo dareysan in koonkan aynu ku noolnahay yahay mid qudradda ilaahay ku socda khataraha kale aynu waajahayno waxaa ka mid ah cudurrada loo hindiso qaabka biolojiga ama farisyada la sameeyo iyadoo caalamku soo maray xilliyo ay si ballaadhan u faafi jireen cudurrada qaarkood sida daacuunka oo kale kuwaasoo galaafan jiray nolosha in badan oo aadamaha ka mid ahaa ayaa xilligan in yar oo inaga mida oo keliya waxay aaminsan yihiin inuu xilligaasi oo kale soo noqon karo maadaama badankeennu qabno inaynu faaham badan ka helnay cudurrada iyo waxyaabaha keena laakiin waxaa jirta in farisyada cusub ee aynu daaha qaadno ee aan hore inoo soo marin aynu dhibaato kala kulanno sidii aynu u fahmi lahayn ee u daaweyn lahayn ama uga hortegi lahayn iyagoo mustaqbalkana ay farisyada qaarkood sabab u noqon karaan in aadamuhu gaadho ama ku dhowaado dhammaadkiisii dunida aqoonta halabuurka dhanka biolojiguna waa mid inoo horseedi karta inaynu gacmaheenna ku samaysanno farisyo iyo cudurro cusub kuwaasoo haddii qaab uun loo isticmaalo galaafan kara nolosha malaayiin ruux iyagoo guud ahaanna 7 bilyan ee dunida ku nooli ay yihiin kuwo ama isu dhow ama xidhiir joogtaa leh taasina ay sahli karaan inay cudurradaasi ku faafaan dunida